لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على Microsoft Word waxaa lahaa program noo ogolaanayo in aan sameyno documenti. Sideen kusoo kicin karnaa Microsoft Word? Ugu horeyn start menu tag, halkan searchiga waxaa ku qortaa Word. Waad aragtaa Word 2016. Sideen ugu bixi karnaa Microsoft Word-ka? In aan iska cancelna ayaan rabnaa. Haddaad cancelaysid waxaad ku dhufanaysaa geeskaas close. soo kici. sideen u sameyn karnaa blank document, macnaha documenti bannaan. Si aan u sameyno waxaad tagaysaa file menu, then new ka dooro. waad aragtaa halkan blank document ayaa ku qoran, meeshaas ayaa ku dhufan kartaa. waad aragtaa wuu noo sameysmay. sideen u save gareyn karnaa documentiga? si aad u save garaysid waxaad tagaysaa file menu, then save ayaad ku dhufanaysaa. meesha aad doontid inaad ku save garaysid ayaad ka dooranaysaa computerka. positionka aad doontid ayaad ku save gareyn kartaa. hadda desktopka ayaan dhigaynaa. sideed u xiri kartaa document folder? file menu ku dhufo. close aad ka wada bixaysid ma sameynaysid, laakiin close oo waxaad sameynaysaa inaad iska xirtid. markaad close garaysid sidaan ayuu noqonayaa. sideen usoo kicin karnaa programkii aan hadda xirnay? file menu ku dhufo. open ayaad tagaysaa. open markaa ku dhufatid recent waxa taagan waa wixii hadda dhow aad furtay. tusaale ahaan hadduu yahay mid aad hadda dhow isticmaashay oo aad iska xirtay, recentiga ayuu taagnaanayaa. kadib waad soo kacsan kartaa. aan soo kicin hadda waa kana wuu inuu soo kacay. ku save garay documentigaaga ama ku xareyso flashka sidoo lagu xareyn karaa. marka si aan ugu save garayna flash waxaan tegaynaa file menu. markaa tagno save haddaan ku dhufano isla positionka hadda uu ku jiro meesha uu hadda yaala ayuu ku save gareynaa. laakiin si aan flashka ugu save gareyno waxaan tagaynaa save as markaa ku dhufano this computer ayaad ku dhufanaysaa. kadib waxaad ka dooranaysaa flashka, micnaha f hadduu yahay, hadduu e yahay, hadduu d yahay, meesha kugu jira ku dhufaada. flashka ayaan dhex taagna si aad si cad ugu aragtid. waxaan sameynaynaa this computer ayaan ku dhufanaynaa. hoos soo deg. flashka waa kan shriifkiisa ayaa ku qoran. ku dhufo. halkan ayaa save ku dhigaysaa. marka save si aan u ogaano in uu noogu save gareysmay waa soo fiirinaynaa. flash ku dhufo. waad aragtaa inuu noogu save gareysmay. halkan ayuu yaalaa. cancel. sideen protecting ama security ugu sameyn karnaa documentiga? si aan documentiga security ugu sameyno waxaad ku dhufanaysaa review. markaad tagtid waxaad dooranaysaa groupkan protect. waxaad kasii dooranaysaa restrict editing. halkaas ku dhufo. godkan marka aad soo dooranaysa sax kuma saarna, laakiin halkaas ba allowed ayaad meeshaas tick saaraysaa. tick marka aad saartay halkan ayuu kuu soo saarayaa. meesha markaa ku dhufatid 4 dooq ayuu ku siinayaa. laakiin dooqyadan waxaa ugu wanaagsan kan oo ah no changes read all, macnaheeda ay tahay kaas haddaad dooratid kaliya qofka documentigan fura wuu akhrin karaa oo kaliya, waxna kuma dari karo waxna kama jari karo. ku dhufo halkaas. kadib yes start ku dhufo. passwordka kaliya halkaas. kanna isla kii ku celi oo kaliya. hadda security ayuu leeyahay. save ha ilmaamin inaad save dhahdid. save dheh. cancel. marka hadda ayaan broweynaynaa oo soo kicinaynaa. ku dhufo. soo kici. in aan wax ku dari karna ayaa broweynaynaa. waad aragtaa wuu diidayaa. marka inaan wax ku qortay aad isku daydid wuxuu kuu soo saarayaa stop protection ayuu ku dhahayaa. stop protection ku dhuf. halkaas security ka geli. okay hadda wax waa ku dari karnaa. marka waa aragtaa waxna waad ka jari kartaa. qoraalka doonto waa ka tirtiri kartaa. ilaa haddii aadan joojin waxna kuma dari kartid, laakiin waa akhrin kartaa. isla security haddana waa elin. okay markasta waa inuu protected ahaado. save hakaymaan. then rename ugu sameyn karnaa documentiga inaan magac u sameynaa. magacaan ku qoran inaan ka bedelno. si aad ugu bedeshid waxaad sameynaysaa
waa dul tagaysaa right click ayaad dheeda rename halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadib magaca doontid ku qoro magaca doontid ayaad ku qoran kartaa intro ayaad leedahay waa aragtaa magaci waa ka bedelnay scrolling waxaa la dhahaa calaamadan qaybtaas scrolling up ayaa la dhahaa qaybta kore waay marka aad doonaysid documentigaaga qaybta kore inaad tagtid scrolling down marka aad qaybta hoose fiirinaysid qaybtaas meeshaas ayaa la dhahaa si fudud keyboardka ayaa ka isticmaali kartaa keyboardka markaa isticmaalaysa waxaa adeegsanaysaa control page up kor ayuu geganaya control page down qaybta hoose ayuu keenayaa text markaad dooranaysid ama waxyaabo kale adigoo isticmaalaya muusiga waxaa loo adeegsadaa markii ay tahay waxa aad dooranaysid waxaad samaynaysaa hadeertaan assalaamu calaykum ayaa rabaa inaad doorto double click ayaad ku siinaysaa marka aad dooranaysid line of text macnaha hal sadar oo dhan dhinaca bidix ayaad click ku siinaysaa kadib waa soo jiidaysaa adigoo ku dhigan kliga muuskan dhinacaas ayaa soo jiidaysaa sidaas ayaa ku dooran kartaa multiple line macnaha sadaris badan inaad dooratay ayaa rabtaa dhinaca bidix ayaad ka istaagaysaa sadarka koowaad aad kasoo bilaabaysaa midka aad doonaysid hoosle usoo dayaysaa dhammaan sidaas ayaa ku dooran kartaa marka aad doonaysid documentiga oo dhan inaad dooratid isla sidii ayaad dooranaysaa dhinaca bidix ayaad ku dhufanaysaa kadib hoos ayaa usoo dayaysaa dhammaan sidaas ayaa ku dooran kartaa tusaale ahaan marka aad doonaysid erayo cayiman ama waxyaabo cayiman click markaa ku siisid geeska shiftiga ayaad taabanaysaa kadib sidaas ayaad ku dooranaysaa click ayaa ku siinaysaa oo kaliya eraygaa doontid click ayaa ku siinaysaa shiftiga adigoo ku dhagan selecting background color macnaheeda hadda backgroundkeena waa white cadaan waaye sideen uga dhigi karnaa color ama midab si aan color ugu sameyno design ku dhubo page color halkaas ka dooro colorka aad doontid dooro midabka aad doontid waad aragtaa hadda midab guud ayaa u sameynay midab kale ayaad dooran kartaa blue ayaan ka dhigi kartaa ayu midabka aad doontaa ayaad dooran kartaa meeshaan halkan waa ka dooran kartaa midabada